bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada Istanbul Kitchen. maanta waxaa sameynaa insha allah doorsho Soomaali. insha allah waxyaalay ka kooban yihiin inta 5 xabo ukuna inta kusoo shubtay insha allah. saliid inta seeto koobkana ma buuxa insha allah. sonkortana intaa baking powder ku shubayaa. inta heel ii shiidan waan ku dar doono insha allah. koob iyo bar aan isticmaali doonaa burka insha allah. intaas ka kooban yihiin wax yar oo baking soda oo ku dar doonaa insha allah. maasha allah waxaan soo shubayaa sokorta iyo waxaan isku qasayaa ukunta insha allah. ana blenderkana isticmaalayaa mid alaal midka haysid waa isticmaali kartaa kana isticmaalo insha allah. maasha allah hadana saliidan ku qasayaa insha allah. aan ku darayaa taas heelkii aan ku darayaa shiidna insha allah. waxaan kaloo ku darayaa burka insha allah. koob aan ku shaqshaqaayo insha allah. koob iyo intaas insha allah. waxaan ku darayaa baking powder iyo baking soda wax yar. intaasaan ku shaqshaqaayaa sana walaaqaysaa halkaasaan maasha allah saasaa kasoo dhigay. marka weelka ovenkana waa sii kululeysanaysaa insha allah 350 adee 45 daqiiqo meelahaas u qaadanaya. maasha allah intaa kusoo shubay insha allah. ovenkan gashanayaa maasha allah. doorshadayna saanay kusoo baxday insha allah. dhinaca kale aan u gudinayaa insha allah. maasha allah inaba caadi ma ah. maasha allah saanay kusoo baxday inaba caadi ma ah. casiraaga iskaga tuur waayo marmar qaarkood insha allah. marka waa soo jirayaa maasha allah inaba caadi ma ah. waa isbuunyo insha allah. haddaa ka hesheen subscribe-ka iyo like share comment-kana waa dhinaciina.